ciidamadan oo sida ay sheegeen ka soo goostay jabhadda SSC ee fadhigeedu yahay magaalada Buuhoodle ayaa maanta soo gaadhay deegaanka Yeele ee gobolka Sool waxaana soo dhaweyn u sameeyay saraakiisha qaybta 7aad ee ciidamada Somaliland. Ciidankan ayaa waxa hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Buuhoodle ee Somaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Ceegaag waxaana sheegeen saraakiisha ciidamadani in maanta laga bilaabo ay kamid yihiin ciidamada militariga Somaliland. Ugu horeyn abaandulaha qaybta 7aad ee ciidanka militariga Somaliland Ibrahim Ashkir ayaa soo dhaweeyay ciidamadani waxaana uu sheegay waxaan ku soo dhaweynaynaa ciidan jabhada oo ka soo goostay jabhada Buuhoodle degan oo u socda Somaliland inay ka qaramoobaan oo ciidan ka noqdaan oo ku biiraan ciidanka qaranka baan ku soo dhaweynaynaa halkan degmada Yeele ciidankaas wuxuu isugu jiraa ciidan hore noogu yimi oo ka soo horeeyay ciidanka saaka yimi oo 40 ahaa iyo ciidan cusub oo isna ka daba yimi labada ciidan baanu halka isugu keenayno doonaynaa inay isla jaan qaadaan waxaan idinku soo dhaweynaynaa 114 ka way soo dhaweynaynaa jabhad meel lagu ma gaaro oo maayarka Ceegaag iyo taliye Ceegaag way joogan maay iyo barasaabkii Buuhoodlena way joogan malaha reer guure raaci iyo caruur loo kala sheekeeyaa wala isma saarkaan dadkuna ugu baahnaa wayna sarag marka waanu isu gudbinaynaa wayna isu baahan yihiin dhankooda saraakiisha ciidamadani ayaa sheegay in ay kamid yihiin ciidanka Somaliland waxayna sheegeen hore uga tirsanaan jireen jabhadda SSC ee fadhigeedu yahay duleedka Buuhoodle soo kaxeeyna waan soo gudbiyay waxa aan keenay taliska waxaana halka aan ku igala wareegay oo aan ku soo gaarsiiyay saraakiishii qaybta 7aad ciidankan waxay kamid ahaayeen ninka SSC-da ciidan jabhadda sheegta wayna joogan waxaana ka soo qaaday xirada dhexdeeda gudoomiyaha gobolka Buuhoodle ee Somaliland iyo sidoo kale maayarka degmada Ceegaag ayaa dhankooda halkaasi ku soo dhaweeyay ciidamadani waxaan soo dhaweynayaa awalan ciidanka soo goostay ee magaalooyinka faraha badan ilaalo Qurfadhi iyo Buuhoodle ah aad iyo aad baan soo dhaweynayaa aad iyo aadna ugu faraxsana waxaan u mahad celinayaa wax kasta qorshe leeyihiin wax kasta laga qabanaya qorshe leeyihiin qorshadan waxa bilaabay xukuumadda waxa bilowday guutada 7aad waxa qaybta 7aad waxa bilaabay Maxamed Cabaashi wuxuu ku guuleystay markii 3aad ama markii 4aad in dagaalkii xabadda la joojiyo ee labada nin ee walaalaha isku ridayeen deedna qorshe kale iyo geed socod kale si ay madaxdu sheegtay dalkeena lagu xasiliyo amaankiisa lagu sugo anigoo maayarka Ceegaag waxay guul labaadii tahay ciidanka Horfadhi iyo Dhilaalo ee xukuumadda loo diiwaan gelinayo waayo waa dhulka aan ka fadhiyay waayay waxaan la shaqeynayaa hadii la idmo oo ballan qaadaya ciidanka la qarmeeyay ee Horfadhi iyo Dhilaalo iyo Buuhoodlaba inaanu si hufnaan iyo sharaf la ula shaqeyn doono wixii loo idmay xukuumaddu loo idmatay waxaanu bas ka dardaarmayaa qoladan inooga timi jabhadda in ay helaan xagga dawladda iyo xagga taliyaha ciidanka iyo ilaa heer madaxweyne xuquuqdii ay lahaayeen ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland inay helaan Muqtar Cabdi Jaamac wararka Honkeebel Laascaanow shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit